hadduu igu jiran xanuun saa igu hayaa maxaa helay maxaan ku raadayay dhibaato weyn buu igu hayaa meesha bay goy rabtaa marna dhiigba bay keenaabo katiitarku maxaan ku raaday marna dheecaan buu keenaa kolba wax buu keenaa xaalad xun buu igu jiraa maxaa 6 bilood buu igu jiraa muddo badan buu igu jiraa talaabo ma qaadi karo waayo guri kama bixi karo meel ma tii karayo maxaan ku raaday nolosheedii oo dhan ba katiitarkaas aan ku soo koobay mustaqbalkayga dhan waxaan ku soo koobay katiitarkaas marka walaalahayga waxaan ka codsanayaa inuu ilaahay faraj iga furo katiitarkan la iga reebo onde walaal sida dadka caadiga aan u dhaqmo qof mustaqbal labaanahay ina yar baanahay adduunkan oo dad ku cusub baanahay haddana maxaan ku raadin nolosheedii la daba qaatay katiitarkaas u daba qaatay baanahay maxay helay katiitarkaas intaas oo dhan igu jiray marka mustaqbalkayga dhan katiitarku ma koobi karo qof mustaqbal laanahay walaal marka waxaan niga codsanayaa caawimaad sababtoo hooyadeena ma awalso muddo waxay haysay 10 sano ah ay kulba dhakhtar geenisay dhakhaatiirta Itoobiya hooyada lacagta way ka dhameeyeen lacag hooyadii maanta gurigeyga waxa dib ugu laabato xataa boos ima haysay maanta iibsay igu dhageysay dhakhtar maxaan ku raaday waxaan nahay ciyaal yaryar oo agoonahay marka maxaan ku raaday xataa gurigeyga cid ay kaga dambeeyay hooyadii maanta ay tiraado qofkaas ugu dambeeyay ma jirto haddii maanta aniga hooyadii teeda noqoto xataa uma malaynayo qof dambe oo katiitarka ama dhakhtar ama meel dambe isii geynayeen inuu jirin sababtoo waxaan ahay qof hooyada kaliya taasata marka ma aqaan wallahi nolosheeda waxa u dambaysa laakiin ilaahay baa iska tala saarnayay mudda nabi maxamed ban caawimaad ka sugaya sababtoo hooyadii mooy qof kale xataa maanta hooyadii xataa iga soo garab istaagay ma jiro hooyadii xataa caaw madax xanuuna ma ogi inuu katiitarkaas igu sii jiri doono in xaaladda ku sii sugnaan doono qof iska feenayso meel isku buuxinaysa ma yihiin sababtoo waxaan